السلام عليكم أمد الصوماليات أدونك ماشي جوكتنبا وأنا جو هاني جامع قفكني لها الليسو أو كامبين كسيت normal silence campaign normal silence campaign محويا كامبين هooyooyinka وفري hooyooyinka قربها جوجو أو دباتيسن أو عيال هذا لقى قاتي so the last 6-7 weeks waxaan wareysanayay hooyooyinka ciyaalka laga qaatay. I wanted to find out where it went wrong, what happened. Hooyooyin badan la kulmay, and of course there are few mothers oo ciyaalada looga qaatay due to neglect inay ciyaalka korin waayeen, inay ciyaalka rafaadsiiyeen. Yes, it does not necessarily mean in social service-ka shaqadooda inay wax xun sameeyaan. No, it's not that. But what I did find out was 9 out of the hooyooyinka wareystay, I think waxaan wareystay 12 hooyooyin, 9 out of them waxa socialka usoo dhexgalay because of forms ay saxiixeen. I am always talking about this. Please formka aana ogeyn oona fahmaynin ha saxiixina. Hooyo waxaan wareystay oo shaqaysato wadankan kusoo kortay oo wax walba taqaano oo rightskeeda taqaan, everything kala taqaano, but hooyadan ciyaalkeeda waxay geysaa after school club. So khaladkii samaysay the after school clubna dadka Englishka deganay waxa weeyaan hooyooyinka meel ciyaalka lagu haayo markay shaqada ku maqan yihiin. So what happens, iskoolkay ka soo kaxeynayaan, meeshoodii geynayaan until usually 6 o'clock free. So hooyadan markaan wareystay la fadhiistay formka iga sheekaysay. So what did I do? I got the form finally so I can tell you guys what happened. I'm always talking about do not sign anything that you don't understand. Especially hooyooyinka Soomaaliyeed, please haddaa I maqleysaan again walaalayahay, do not sign anything to do with your kids. School, anything to do. If there's anything to do with your kids oo lagu dhahay saxiix, do not sign it. I don't care what it is, do not sign it, because these forms are misleading. I have the form right in front of me here. Form can, first of all, this is 9 pages. It can happen to anybody. 9 pages or small prints. Waxay ku leeyihiin marka ciyaalka ku soo qoraysid formska buuxinaysid. Formkan waxa ku qoran if hadii ku arkaan an injury ciyaal cunugaaga, or usually it happens in school, because bear in mind hooyooyinka shaqeynayaan 80 gayaan to 6 o'clock. Anything that happens in school, injury, waxay ku leeyihiin take it to the doctors. Ayaka ku dirayaan. So dhakhtarka hadaa geynin or explain how it happened, an injury cunug haduu ku dhaco, usually it happens from year 1 to year 6 ciyaalada maalin walba dhacaan. That's something that happens. So if you don't, afbuuxo waxa ku qoran if you don't, socialkay kugu soo dirayaan. Okay, first of all, these forms, you don't have to sign it. Wax kugu qasbaya ma jiro. Nobody is asking you to sign these forms. These kind of forms are misleading, and what you're doing is you are signing over your parental right. So signature hadii laga helo anything to do, especially this waraq, that means they have to right to intervene with your home, with your kids. Ayaka ku tilnayaan dhakhtar gay maxaa cunug kasi. Why? All because you're signing a letter. So umada Soomaaliyeed, especially hooyooyinka, after these 4 waxyaalaha no mistake, it can happen to anybody. Hada afaqooni, hada aftaqaanid. Laakiin hooyooyinka sanadyaashan, especially wadanka Ingiriiska, hooyooyinka laga qaadanayo hooyooyinka si fiican afka u aqoonin oo na fahmaynin what is going on. First, number 1, waxa hooyooyinkaas la talinaya anything to do with waraaqo, miss meeting la leedahay iskoolka, miss anybody wants to speak to you or see you, do not go alone. Bring somebody with you, qof afka yaqaano ku turjumo. When it comes to waraaqaha, always waxa dhahdaa I don't understand, can I take it home? Gurigu qaado, go through it in your own time. Lawyer oo la tag, but don't sign anything. This is what I wanted to say, guys. Again, be careful umada Soomaaliyeed, hooyooyinka miss adduunka meesha ku nooshiinba. Never ever sign anything to do with your kids. These forms are in small prints. They're 9 pages long.
adiga waxa umaleynaysa is just okay iska saxiix, but what you're doing is you are signing over your parental rights. So please, that's what I wanted to say. Ummadda Soomaaliyeed waad mahadsantiin, and feel free to share this video. Thank you very much. Assalamu alaikum.